golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maalintii labaad waxay ka doodayaan ajandaha kalfadhiga 43 oo uu ku jiro xeerka doorashooyinka ee Somaliland kaas oo muran badan uu hareeyay warbixin arrinta ku saabsan magaalada Hargeysa waxaa nooga soo diray Xamse Dabaare kalfadhigii 43aad ee mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ayaa waxay kalfadhigaasi ka yeesheen ajandaha waxaana shir gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baasha Maxamed Faarax xildhibaanada golahaasi waxay halkaasi ku soo bandhigeen dadku aadan xeerka doorashooyinka waxaana yiraahdeen taageeraya arrimihii ahayd in loo yeero mas'uuliyiinta xukuumadda ka tirsan anigu waan magacaabaya kuwa aan u baahanahay inaan u yeero wasaaradda tacliinta iyo xeer ilaalinta waxaa sababta aan ugu yeerayana waan sheegaya waa ogtihiin in arrin foolxume ay ka dhacday halkan agoonta lagu hayo oo ina yar oo xanuunsanaysa maskaxda ka xanuunsanaysa in la faraxumeeyey markii la faraxumeeyena mas'uuliyiintii meesha joogay ay codsadeen dhakhtarka inay ka codsadeen ilmaha soo saaro waa criminal offense xeerarane waxaa ka doonaya in arrintaas dembigu ka sameeyey ay kale in la ogaado wasaaradda tacliintuna wixii ay ka qabatay baanu doonaya inaanu ka ogaano yaa dadku moodin inaynu inagu hortaagnay doorashooyinka oo waa inaynu xagga hore iska soo dhigno taa waan waafaqsanayn maxaan ku dhahay xeerka waxaana weeye xeerarka aynu ajada markaynu samaynayno runtii gudoomiye waxay ku habboonay in gudiyada lagala arkin galo oo lagala tashado oo loo eego muhiimadda ay leeyihiin xeerarkaas bari ayaantii dhaweyteeg barnaamijyada kala bedbedelay waa arkayseen rag mas'uuliyiin qaran ah oo magacii xukuumaddeena ku hadlaya oo xafiis sharaf la fadhiya inay dalkoodii qaybana ay caayeen qaybana ammaanayeen waa meel ka dhac weeye mataqaanaa haddii waddankaaga qayb xun tahay caykaama istaahilo waana iyo mataqaanaa inaad la taliso iyo inaad wanaajiso ayaa dad mas'uul tahay kugu habboon nasteexa kaaga habboon ee ku digasho iyo caytan waxaan odhan lahaa nimankaa dowladdu ilaa haddeer xukuumadda ilaa haddeer arrintaa kamay jawaabin wasiirka daakhiliga u jawaabaya raaligelin buu bixiyey waxaan odhan lahaa yani waa dhaqan aad iyo aad khatar u ah mataqaanaa marka mas-uul qaranka ku magacaabo Somaliland uu dadkiisii iyo dalkiisii qayb ka mida mataqaanaa aflagaadeeyo yaso cid kale oo markaa la joogana mataqaanaa uu amaano police station si looga wada qabto doorashadii madaxweynaha iyo doorashada xubin wakiilada iyo doorashada xubin deegaanka inaguma cadda xeerka inaguma yool maanta waxaynu rabnaa in hal sanduuq saddexdaasiba ka wada dhacaan oo ay uga wada dhacaan iyadoo xeerka waafaqsan aynu xeer ka dhignay maadaama intaasoo dhan ku xidhan tahay komishinkana aanay gacantiisa ku jirin doorashooyinka hadda la isku sidkayna aanay isku sidkami karayn oo ay tahay mid liisa sida hadda xeerku u yaallo iyo mid qof la dooranayo inaynu midayna xeerkan inaga sugaysayo halkan ay taallaan Xamse Dabaare RTN TV Hargeysa.